ورحمة الله وبركاته. دنيا حج وإيمان يا مكان مكفوك يا جستوى. السلام كدي وحنا مرة رئيس دمانتي إن كجمع هدعينا وقتي نقالي جاء نينكو أنتي واجبات قرن الإنسانية كمان واجبات كدولة هوسة يقول البلاد. محمد سلام يا قفر بالمجا يا ماموس كروحنا قفر اليوم هدو أجاسمي هاي هدو الدنيا دقمي هاي يهدي وشغالي هاي هدي سركيش يدين إلى ما عن حوينك يقيمها كردون الرجال الجدعانته. السلام كدي أما أنت وكلاء ومعلومة رنتي أبوه ونكسر لقونا فرحة الضلالين شغالها على كلهم صوت ومارين تلاقي حد محاكمة وصورة قليل محاكمة وصورة قليل. تا معناه الحيتاي مارين تبوه رئيسي وأن كلني مركي أو حيل كان قبتي بشي أبريل أيام وحنكها لي حل لوشي أو سهلنا لكن هذا نوبة عن مارينتا مانتا وكلا مركي تعالى ولا شيء دين لهم من العسل ولا يسويتي. كو waxay ahayd waxaan maalinta iri waxaan xaqiijin doonaa qofka shaqaalaha xuquuqda uu ku leeyahay dawladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir inaan xaqiijino oo uu helo bil walba. isla markaas haddana waxaan iri sidoo kale qofka shaqaalaha dawladda hoose ka shaqeeya ama gobolka Banaadir asagana in xaqii lagu lahaa maamul ahaan ama dawladda hoose ku leeyahay isagana in laga helo. حرام كمانتنا على هذا محصول تقلي محنا نوصل تقلين ونوجه وقت بدنا نصور مرني وحنا كم هالعلنا يا قفوا البدلال وكقي قاعتي بدل وجريه يورنتي إنرجيا يصيروا كلا ظروفها هذا كي قاعدوا دروس شيء وحنا مركينا على هذا أنه ما بلهان أهمية كوا وحنسيني وحقوه الرئي السيئة قفك شغالها يدلون هو سكاء مدور كبنادر كشغيو إن حقوق يسر أما وحول حقه لها إمام الكوكولا إنه كهلا وحنا ملانا إمانة مرة الموضوع تهي إن لقصوا بالله أبريل إلا يوم مانتا أو أي بشو تهي سنين سجال لواتن إن صوح حقيقة أنتي مانتا حتى مشاركة دي أكامل وكجرو لكن أنكر الجين إنه كلنا قدرنا دونا كنا حلو رجل دونا معمول كعصب إن المشاركة سريعة صوتوا مشاركو أنا وحنا نقول بين جرتي مالك مركب وضاها شغالة وحكا جارية سد حدا أفرت إلى عشان تلش ومالك توضاها أنت بلا مسؤول يعني مشاركة وحب بالله رجل شيء لا تنكر على تضوي لا تنكر وهي إن قفك عمودي سوء هرب إلا كما دمبيس عشان تبيش أو مركب ده إنت لكن أنت كلام كهر يعني حقيقي إلى يجي سبحان رجينا ما مركب عصم إنه أهمية قاعد عسين دونه أو وح والله يكون مرين دونته حقوق الشغالة إليه sidoo kale maxaa xaqa lagu lahaa dawladda hoose iyo maamulka gobolka Banaadir lagu lahaa maxay inta ka qabatay waxa horta inaan ka cadeeyo duruufo kasta oo lagu soo shaqeeyay kala duwanaan in waax walba shakhsi walba iyo xafiis walba oo qaybtii ku aadanay intuu Ilaahay ka waafajin kara soo qabtay waxaan ognahay marxaladaha kala duwan aan ku soo shaqeynay sanadkii hadda la soo dhaafay 2017 wuxuu ahaa sanad أي فرحة كوجته مدونة كوجته وحنا وصل من وجهكينا وحنا وصل من قرب استاجين وحنا كوجاني ما أنت ماشى عن جبنه إن دمان شغالة هذول الهوسة يمام وكبر كبنات الأودجلة ظروف كستوى يسوي جهدي إن لو يقدموا ودجلة وحنا قلنا هاي دبعت بدل وصامرني خرمر بدل ولا سوسني haddii laga fiirinaanka dhanka tusaalahaan mashaariicda maamulka gobolka Banaadir waxaan soo aragnay in inta badan shaqaalaha waxay kala duwan fursado tababar ay helaan fursado dalacsiin ay helaan iyo sidoo kale inay helaan fursado maamul cusub lagu soo kordhiyay iyo waxay cusub lagu soo kordhiyay ama in lagu soo kordhiyay units qaybo kala duwan oo cusub lagu soo kordhiyay taa macnaheedu waxay tahay qofka shaqaalaha hiigsiga uu leeyahay ee shaqada iyo hamliga iyo mustaqbalka uu ka leeyahay inuu kor u kordho qaar waxaa u suurtagalay dadka dibadiisa tababaro u aadaan qaar waxaa u suurtagalay gudaha inay ku tababartaan qaarna waxaa u suurtagalay inay ku biiraan waxyo cusub waxaan soo aragnay kuwa idin ka mid ah in dalacsiin ay heleen oo la xaqiijiyey waxaan sidoo kale usoo joognay in muddo ay soo socotay shaqaalaha mushaarkooda oo cadadka ugu yar kuwa ah in lacagtii ka maqnaan jirta ay dib u helaan
janaayo sidoo kale miisaaniyadda cusub ee sanadka 2018 ee la diyaariyey bishii janaayo markii dhammaadkii bishii December oo janaayo ay dhalatay waxaan saxiixnay in qof walba shaqaalaha dowladda hoose ka mid ahaa 30% oo ka go'ay jirta qaarkood dib loo sii jiray in loo soo oo qof walba mushaarkiisa ugu soo laabanayso saa darteed marka waxaa marka xuquuqdii idinkan ku lahaa ama xaqeedin ku lahaa aad qabateen inaan qaybo ka mid ah ka sheego waxaan xasuusanaa musiibadii lagu dhacday 14 Oktoobar oo ahayd maalin murugada waxay ahayd maalin mugdiya oo ummadda Soomaaliyeed soo wada martay ma ahayn wax awoodda bini'aadanka ama qofka shakhsi ahaan uu ka bixi karo wax ummadda Soomaaliyeed maalintan ku dhacay laakiin waxaa looga gudbay maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose oo iswadata iyo ummadda Soomaaliyeed wadajirkooda ayaa looga gudbay dadkii u horreeyay ee meesha tagay ee ummadda gurmadka u fidiyey ilaa maalintii u dambeysay ee meesha la soo gabagabeynaya waxay ahaayeen maamulka gobolka Banaadir dowladda hoose iyo ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaalida mutadawacnimadooda ayaa maalintan samata bixisay laakiin ka maamul ahaan iyo dowladda hoose ahaan waxaan ku dadaalnay adeegii ummadda ay naga sugayeen itaalkeena inagu og inaan ummadda uga marqaati kacno inaan meesha taagannahay wax alla wixii awooddeena itaalkeena ahaa taana waxaan ku gaarnay waa shaqo idinka aad wada qabateen waxaan rabaa muddadii aan soo wada shaqaynay maamulkayga iyo idinkaba muddadii aan soo wada shaqaynay inaan ka mahadceliyo casharadii badnaa ee aan kala baranay dadka markay meel wada joogaan waxbaad ka faa'iidaa adigana waxbay kaa faa'iidaya waxyaabaha oo aan aad ka hor ilmaami karin aan ka faa'iida dhammaantiin waxaa ka mid ah isu duubnida iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda hoose inay dad kale ka duwan yihiin isku duubnidaas waxay ka muuqatay waax walba waxay ka muuqatay xafiis walba waxay ka muuqatay shaqaalo walba waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo agaasin kasta wax walba qabanaya laakiin haddana runtii qaybta shaqadii shaqaalaha oo kaalin weyn ka qabatay in ujeedadii ugu weyneed aan lahayn ee ah xuquuqda shaqaalaha inay suurta gasho waaxid runtii aad u suurtagelisay oo qayb weyn ka qaadatay in shaqaalaha waxooda ay helaan waxaan maanta ognahay alxamdulilah inta shilin Soomaaliya ku qaata maaha inta kale oo dhan shaqaalaha intooda badan in lacagtooda account ugu dhacdo oo uusan qofna ka taaban karin oo qof walba si daahfuran oo xalaal accountkiisa ugu dhacayso oo qofka xaqiijinaya bisha markay dhamaato accountkiisa lacagta ugu jirto gabagabadii waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo dardaaranka saaxiibadii iyo dhammaan inta kale shaqaalaha kulligood sidii aad noola soo shaqayseen muddadii aan soo joognay inaad sidaa si lamida ula shaqaysaan maamulka cusub oo hogaaminayo gudoomiyaha cusub ee injineeriyiinso sababtoo ah shalay annaga waxaan wax ku qabanay meesha uu wax soo gaarsiiyey iyo horumarka uu sameeyey gudoomiyihii hore aan aniga bedelayay Sheekh Yuusuf maantana maadaama aad la soo shaqayseen anigana aad si wanaagsan ila shaqayseen inaad sidoo kale ula shaqaysaan gudoomiyaha cusub iyo maamulkiisa ayaan dardaarankayga u yahay gabagabadii wuxuu dardaarankayga yahay qof walba oo idinka mid waxaa idin saaran mas-uuliyad sida idin saarnaa jirtay inaad ogaataan mas-uuliyadda idin saaran way ka duwan tahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadda dowladda dadka dowladda hoose ka shaqeeyay gobolka Banaadir waxaa saaran mas-uuliyad gaar ah taasoo ah mas-uuliyad la macaamil shacabka ah adeegyada kala duwan maadaama la macaamilka shacabka iyo adeegyada kala duwan oo si sahlan ay kaaga dhigayso qof dadkiisa u adeegayo inaad adeega ummadaada u adeegaysid daba jibaatid waxaa kugula xisaabtami doontaa naftaada maamulkaaga iyo mid ilaahay oo meel ku taala iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan
shaqadu waxaan ognahay inay sharaf tahay waxay sharaf tahay markaa dadkaad u adeega dadkiina idinkoo xaqiijinaya in maalinba maalinta kasii dambayso horumarka uu dhowaanayo lana gaari doono heerka ee noo qorshaysnaa ee aan la rabnin shaqaalaha dowladda hoose iyo maamul gobolka banaadir heerkaas oo ah shaqaale isku filan iyo bulsho adeegooda loogu filan yahay kaasoo ah adeeg iyaga loo adeego iyo shaqaalo faa'iido u keeno ummadda ay u shaqeeyaan ugu dambeyntii waxaan leeyahay insha allahu tacaala waa isasogootineynaa waxaana wada rajaynaynaa dhammaanteen insha allah inaan khayr isugu soo noqon doono hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu